السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jiray nin habeenkii ku wareegi jiray wadooyinka asagoo marqaan ah. habeenada ka mid ah ayuu wuxuu arkay bisad yar oo baahi ka sheeganayso. kadib ayuu wuxuu ku yidhi, adigana waad baahan tahay, anigana waan baahanahay, laakiin aniga waxaan haystaa xoogaa cunno ama raashin ah oo aan ku soo iibsaday lacagta aan haystay oo dhan, laakiin adiga qaado, adigay xalaal kuu tahee. kadib ayuu fadhiistay bisadii horteeda asagoo khamriga cabayo, bisadiina fiirinayo. waxaa la gaaray waqtigii aadaanka salaada subax. wiil dhalinyaro ah ayaa soo maray ninkii marqaanka ah hortiisa. wiilkii ayaa arkay ninkii, kadib wuxuu ku yidhi, inakeen walaal aan salaada aadnay. ninkii ayaa ku soo celiyay hadalka oo yidhi, salaad laakiin aniga waqti badan ma tukan. wiilkii ayaa isna yidhi, inakeen walaal, albaabada alle waa kuwo furan mar walba kadib ninkii ayaa istaagay, dhaladii khamriga ahaydna wuu iska tuuray. wiilkii dhalinyarada ahay ayuuna u raacay masaajidkii ayay galeen. kadib maxaa dhacay? dadkii masaajidka joogay ayaa waxay bilaabeen inay dhahayaan, maxay tahay urkan xun ee soo uraya? mid ka mid ah dadkii ayaa yidhi, waa urka khamriga. haddana mid kale ayaa yidhi, haa, waa urka khamriga, waxaana la yimid ninkaas. dadkii masaajidka joogay ayaa bilaabay in ay garaacayaan ninka khamriga cabay oo ay ka burinayaan masaajidka, weliba iyagoo leh, ka bax masaajidka cadowgii allow. asagana waxa uu lahaa, guriga alle ayaan joogaa ee ma jooga guryihiinna. wiilkii dhalinyarada ahay ayaa yidhi, ka joogsada, haddii kale waad dilaysaan sida aad u garaacaysaan oo uu dhiman. ninkaani wuxuu u yimid in uu tukado. mid ka mid ah dadkii ayaa yidhi, hagaag, haddaba u wac si uu keligiis meel gooni ah ugu tukado. ninkii ayaa ku tukaday meel gooni ah keligiis. markii salaadii dhammaatay ayuu wiilkii dhalinyarada ahay u tagay ninkii. wuxuu u tagay ninkii oo sujuudsan, dhinacna aan isku dhaqaajinayn. markaas ayuu ku yidhi, inakeen walaal, salaadii way dhammaatee. kadib ayuu wuxuu ogaaday in uu dhintay ninkan. wiilkii dhalinyarada ahay ayaa istaagay u yidhi, kaafigaygu waa alle xaq lagu caabudana ma jiro alle ma ahane. ka warama dadkiina waqti walba ku tukaday masaajidka, naftiina ma u damaano qaadi kartaan in aad ku dhimanaysaan adinka oo alle u sujuudsan? ninkan aad garaacdeen aadna doonteen in aad ka burisaan naxariista alle ayaa idinka diiday middaas oona u dooray qaatumo wanaagsan, wuxuuna oofsaday asagoo u sujuudsan alle ka baqa oo shaydaanka garab iyo kaalmo ha uga noqonina walaalihiin.